أركي الشباب وحيهين آيات وسسين ومدى الصوماليات وحيهين مركا عبادة تاعي مركا واحد كفر حسين إن الله أنت خير كجعلد يا مسلمينتي يا مدى الصوماليات آيات كفر حسين واحد كن حسين أو أطربت جويسين خوارجته يا إن الله أنت عدو هيد ومدى الصوماليات نعبيد الشياطين تهيدو رنا واد كن حسين marka taasina waa cibaado kale way waad cibaadaysateen maxaa jira hooyooyin fara badan oo garoobo ah iyo ilmo yar yar oo agoon ah oo dhamaantood raggii dhalay ay baabiyeen oo ay qarxiyeen oo ay rogeen ayaad u soo aarteen marka waad guulaysateen kumanaan ilmood oo Soomaali ah oo agoon ah oo aabahood la qarxiyay kumanaan rajooyina oo hooyadood la qarxiyay oo ayadoo meel yaanya ku gadanaysa oo iska fadhida oo baraadla arday miskiin ah oo buugaag wata oo iskuul u socda oo aan cid wax ka geystay jirin oo iska socda qof miskiin ah oo bas wato ilmihiisa ugu shaqaysanaya qof iska lugaynaya qof gurigiisa iska jooga oo wax dhib u geystay jirin oo muslimiin oo soo wada tukaday ayaa maalin walba inta la qarxiyo oo la baabiyo ayaa la gubay intaas oo dhan aad u soo aarteen kuwii sameeyay oo waxa sameeyay meedkoodii oo daadsan oo aad ku dul dhaantaynaysaan baad soo sawirteen sidaa darteed waad u argudeen waad cibaadaysateen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeed way idin wada hambalyeynayaan meel kasta ay joogaan dal iyo dibad way ku wada faraxsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo dhan baa idin hambalyeynaya oo ku wada faraxsan madaxdina waa kuwan madaxweynihina uu idin imaan doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waqti dhow waanu hambalyeynaa madaxweynaha oo runtii ku guuleystay inuu ciidankan inta tababaro sayid dawladdiisu ay soo saaraan hubeeyaan qalabeeyaan ay deedna ku guuleystaan inay ununka gooyaan ma dhahnaanu ununka gooyaan nimankii shayaatiintaha runtii waa farxad weyn waanan u hambalyeynaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer Jubbaland oo dhan waxaan leeyahay hambalyo ayagana waxaan rabaa inaan idin sheego dawladda federaalka ee Soomaaliyeed hadday tahay heer federaal iyo heer state waxaa ka go'an shabaab in dalka laga xoreeyo shabaab in la tirtiro elimination lagu sameeyo wadanka laga xaaqo ayaa ka go'an insha Allah in badan waa la xaaqay idinkaaba halkan jooga waa buula xaaji oo aan filayo muddo dheer inay la hareen muddo dheer ay deganaayeen oo ay la hareen oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo baadkii intaba ummadda ka jireen oo ay dadkii deganaa ay hareen oo aad markaad aragto حتى صور كوضي دتك مركز عرقت ما أنت يقول رسالة إيماني مركز في رسالة بريد بقول حاجة صور كوضي سي إنه لهين وحاول سيد الظروف تدك كم وقتها النبات تدك كم وقتها يعني الحمى كم وقتها أيها قبضي ما أنتنا وحيكون علونا يعني إن هل كان أي ماذان دولة يوردن وحن هل كان أوكي أي وزير هذا وحياه السعودان كم ده بس كمان السعودان وزير كستايبه وحو garwadeen ka yahay oo hor socda inuu adeegi loogu talagalay in meeshan ay yimaadaan oo adeegi yimaado biyihii inay yimaadaan waxbarashadii inay yimaadaan oo ay timaado waxbarashadii caafimaadkii yimaado wasiirka caafimaadka waa kan waa maxaan ku dhahaa in isbitaalkii la hagaajiyo oo dadkii halkan hadii la yiraahdo aysan meel kale aadin halkan ay khidmaday doonaan waxay rabaan ay keenaan korontadii in la keeno biyihii in la keeno waxa waaye wasiiradii waa kuwan gacanta ku hayay waxa la farayaa inay hawshaas inay dadka reer buula xaaji ay iyo inta kale meel kasto la xoreeyaba inay geeyaan la faraa marka arintaasna waa u soconay hadii ilaahay yiraahdo waa idin la joognaa idin kaba maqnin meel kasto xoreysaan insha Allah waa idin ku imaan doonaa hadii ilaahay yiraahdo marka waa idin daba soconaynaa madaxweyne ciidankan oo birjeex oo magacaas fiican loo bixiyay وإذا كان بريت على شذو برجاح لي هذا سيجارة أيان رنتي مركل وهم بلينا يا وحنسكور رئيسنا دونا هدي لا مدح
madaxdan iska wareysanayna laakiin waxaan rabaa si calan oo la wada ogyahay bal marka ugu horeyso horta bil mushaharkeed had buuxinayna hadii la yidhaahdo ciidanka waa siinayna ilaahay idinkiisa